عبد الله يوسف markii meesha loo dhiibay isna wuxuu dhisay gudiga xaalad degdeg ah mudiriyaadka markii meesha waa ka baxeen gudigaas meesha markii wax maamulayay UNISOM niman la yiraahdo wadanka haystay United Nations Operation for Somalia UNISOM nimankaas marka xagga koonfurta dagaalada ka socdaan iyo waxa ay wadeen gobolada nabadda ay inay ka sameeyaan maamulo bay bilaabeen 93 ilaa 94 ilaa 95 grassroots level baan ka soo dhisnay jawadan SDF tu character waxay u ahayd ama ka muuqanayay laba garab bay noqotay garabka Maxamed Abshir iyo garabkaas Abdullah Yusuf marka iyaga in la soo keena way adkayd waxayna aaminsanaayeen nimankan maxaan ku gaalada ahi ragan waa qabqablayaal waxa kaliya lagu gaari karaa in grassroots hoos degmooyinka laga soo diro dad ay dadku iyagu hayso marka arintaas way effort badan bay saareen way dhisatay marka waxba ka dhismay kamay wada guuleysan gobolka mudug waa la dhisay waxa madax looga dhigay loo jeeday engineer Muuse nugaal waa la dhisay gobolka maamulka horeeyay UNISOMta Cabdiraxmaan Faroole ayaa uu ahaa boosaaso ma xasuusata ninka sidan qof ba kamid ah maxaan ku yiraahdaa heeriyo tolomiyo heeriyo xasan barhamar buu ku tiraalay maxaa ku xigeen buu maamulkaas waa ku jiray amarka heeriyo 96 baa la dhisay laakiin kaasuu ka dambeeyay ka hore ma xasuusanin waxa ka hore maamuladaasi degmooyinka waxa la damay laga soo dhiso waa la isku qabsaday aad baa la isku gaar ahaan degmo la soo dhiso way suura gali weeday conflicts baa yimi community gudahooda ah ma lix degma mise waa 10 degmo baa markii hore ay ka maartada ay ka bilaabatay gobolka bari qolada martaan hadii sidii markaa ama yani community walba soo markaa u arkay inay faa'iido u tahay ku waxay lahaayeen lix degmo hore dawladda afar degmaad jiray markaas oo dambe oo Maxamed Siyaad Barbariyay dambe u dhacay siyaadkii wixii dambe la sameeyay afarta degmo waa jiraan iyo ma jiraan marka group 4 aad maqashay arintaas ka sameysmeen maxaan ku iraaday nimanka group 4 sameeyay waxay nimanka degmooyinkaas dadkii ka soo jeeday ay ahaayeen group 4 waxaan group bareha oo hadii badan kaleeyahay political group ah oo markii dambe Abdullah Yusuf ay alaay la noqdeen ayaa oo maxaan ku iraaday la garab haayeen kamid ah raga anu kamid baan ahaa Abdullah General ba Ibrahim General ba kamid ahaa waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha wasiir xigeenka arrimaha gudaha kulan waxa kamid ahaa Saciid Saalax Oday la yiraahdo reer Calula waxa kamid ahaa Khaliif Ganin la oran jiray waxay rag badan bay ahaayeen marka bari laftiisa u kala baxay marka groups groupka lixda degmo taageeraya iyo groupka 10 degmo ku doodaya waxayna gashay marka waxay la gashay Maxamed Abshir iyo Abdullah Yusuf baqolaba ku xirantay iyaga laftoodii xamar laba group ka jiro Cali Mahdi Caydiid labadooda laftooda waxay ku xirmeen ninka Abdullah Yusuf Caydiid buu la noqday Maxamed Abshir wuxuu la noqday علي مهدي marka functions kala halkaas ayay gaareen 93 waa ka Abdullah tagay maxaan ku raaday heshiiska mudug la soo saxeexanaya garabkan kale marka kuma jiro lama oga go'aan socdo maxay basically isku khilaafsanayeen labadan waxa leadership kooda way kala ma hayn waxa kale wax mabda la isku khilaafsan ma jirin leadership xilku baa isku hayay marka 90 arintaas markii adkaatay 94 shirka qarno waxa loo qabtay dadkii inta lagu shirka goboladan iyo odayadii baa loo tagay waxa sida kuma jiri karo yaani laba group oo baxanka conflict ah shir hal la qabto wuxuun dhinacan wax lagu dhameeyo okay shirkaas markaa June baa la abaabulay 1994 anu kamid baan waa joogay boqoliyo konton ergey baa la qorsheeyay
boqol iyo kontonkaas gobolladan sida ka yimaada saddexda gobol weeye iyo diasporada 30 baa la siiyay bari konton iyo laba la siiyay nugaal 5 baa la siiyay gaalkacyo 45 boqol iyo konton bay noqonaysay kaambeynka marka laga labadii group baa galay markay qabiilada beelaha soo magacaabaya marka group waliba inuu isaga ragiisii ergooyinka wax dooranaya hadhow ilaa wax la dooranaya ninkii madaxweynaha ahaan lahaa bisma maamul baa laga fikiraya ama saddex gobol ka diisan yihiin way qasho dabad waa la yimid meeshii marka hool baa la diyaariyay wixii markii la arkay waxa u batay Cabdilaahi Yuusuf 150 ilaa 50 buu yeeshay for example bari 52 xubnood bay haayeen 40 buu helay meesha la yaan nugaal 35 bay heed labo helay nugaal mucaarad ya laba nin la shaqeynay isaga sideer kamid ah yani kala meesha la yiraahdo mudug 45 keedii Cabdilaahi muxuu ahaa muraba laga dhexdhaliyo Ali Baadi oo rag Maxamed Abshira baa isaguna 40 kala soo qortay 45 kala soo qortay aduu conflict wal beelahaas laga abuuray markii dambena waxa la xidhay King Kwan iyo ragiisi bacda magaaladiisa tahay hoolkiiba yaan la furin baa leeyahay groupkaasi dhinacaas Maxamed Abshir King bay noqotay gudiga qabanqaabada aad ku jiro ma waxaan ahaa maxaan ku raaday gudiga xaaladii degan ahaa maxaa ku dooratay in shirka lagu qabto wallahi horta anigu kamid baan ragay doortay waliba ninkii ku dhawaaqay anigu ahaa ya waxaan u arkayay waxa weeye bacda Maxamed Abshir ay dagaal ay tartamayaan midna mudug buu ka soo jeedaa midna nugaal buu ka soo jeedaa boosaasna markaa ma aqaanay waxba lagu nacay waxay garan maayo meeshaas neutral ya laakiin waxaan ku xisaabtamay inuu kiigi kormeesh ay tay deegaankiisii oo Maxamed Abshir la joogo oo isagu maxaan ku leeyahay marka dambe gacanta sare yeelanayo shirki marka hadii saan noqotay oo hoolkii la xidhay oo qiriyaqeen odayaal isbaaba jooga ismaasha arinta loo geeyay ismadii arintii waa dhaqaaji kari waayay iyaga laftooda kala taageersan labada soo kala taageersanay baleesha raga odayaasha hadda si fiican uma saxo kala laakiin way kala taageersanaayeen kulli ka odaga maxaan ku leeyahay mudug Cabdilaahi buu taageersanaa nugaalna wuxuu taageersanaa Maxamed Abshir inta kalena uu kala qaybsanaayeen King Konna oo ismada isaga boqor oo gudoominaya isla bari wata badanka isaguna bari ma moodanin toban buu ka watay konton iyo labada ya laakiin garabka Maxamed Abshir adigu markii arintii waxay aan qof saddexaad keen bacdayaashii iyaga masaxad ka yaray hadaan ku niraana waxa ka imanaya imtixaan consent kan hadaan niraana consent raay fiican baa arinta dal fiirsho Cabdisaaq maxaan Cabdisaaq Xaaji Xuseen oo Mareykan jooga laga dhigo la hadlay waa yimi Maxamed Abshir Raalli buka laakiin Cabdilaahi Yuusuf oo arkay inuu isaga meesha laga xidhay oo isagu majority-ga wato ma ogolay waa yimi ninkii mucaarad baa laga hortagay gaaraan gobolba maxaan ku raadayay garabka Cabdilaahi Yuusuf mid xoog leh oo barina ku leh yani 80% bari yani Cabdilaahi la socdeen markuu bari yimi odayaashii la shiray allaha hodeeyay naga tag baalay markuu ku soo degay bari gaalkacay markuu tagana sidoo kale allaha naga tag baalay Cabdilaahi baa mid taqaan radii kale meelaha kale laakiin waxba kama imanin wuu fiirshay wuu eegay bas wuxuu ka go'aansaday inuu marka ka tago sida loo ogtay shirkina sidoo ku xidhmay labadii garab sidii bay noqdeen Cabdilaahi waa ka xamar aadaya waa ka caydid heshiiska la soo galay ya 94 kii markaaba salbalaar iyo waqooyi xamar iyo koonfurta xamar bay ahayd meeshaas waa la tagay salbalaar baa dabcan la dhiso iyaduna maxaan ku raadiyay waqti iyo waayaheeda lahayd shirkaas ku fashalay horta shirka marka lagu shirayo waxa yimi niman ka socda Sool iyo Cayn qareen ugu yimaadeen ra'yiga in la soo Puntland balaaran gobolada balaaran saddex kaliya lagu koobin bay keeneen markaas keeneen
ka horeysay 1992 garow waa lagu shiray konton iyo afraad baa lagu shiray way yimaadeen maxaan ku irahdaa reer Sanaag iyo reer Sool iyo Cayn labaduba suldaamadooda yimi marka raygaas uu socday qarna markii lagu fashalay marka ba maxaan ku irahdaa la sii develop gareeyay waxa la yiri ba saddexdan baasha laga dayo hal ballaariyaba waxa yimi marka 94 Somaha waxa ka dambeeyay soo darayaashii iyo waxa ka dambeeyay laakiin inta waa socotay 1993 marka waxay ku dhacday markii xagga laga soo quustay tii levelka Soomaaliya ba tan xoogaysatay iga waran waxa jiray shir ku qorsheysnaan oo ka dhaco Boosaaso tabaana Qaahira loo wareejiyay Qaahirana shirkaasi oo soo burburay Abdullaahi iyo Gabi wareeg ka qayb galay soo carareen ay ka soo laabteen taasina ay didisay dhismaha Puntland halkaas bal yani sida aan sheegayno halkaan aan laba gaar ahayd xamarna laba gaar bahayd marka labada group oo alliance waxaan iska bayhaadeen oo tartamaya igad bash diyaarisay maxaan ku aakhirkii 1996 mise bilowgii 1997 labada kale soo daray meelahaas ahayd ma kala hubo inay ahayd aakhirkii 96 ka iyana ahayd bilowgii 97 igad baa baabanaysa oo hor socoto Ethiopia yani wax dhan ka dambeysay waa la isugu yeeray soo daraa la isugu tagay waa lagu shiriyay waxa la go'aansaday in la soo saaro National Salvation Council guddi sharac oo wareegta ah oo hadba nin uu yahay madaxweyne shantooda gudoomiye uu yahay ayaa meesha laga soo saaray soo daray aydid waa joogaado waxaan ku raadin marka waxaana lagu heshiiyay in maxaan ku iraaday shirka la qabto Boosaaso lagu qabto hadii meeshii laga yimi qolada koonfureed USC iyo wixii wadatay iyo wixii way diideen Boosaaso oo ka warwareegeen markii dambe Baydhaba shirkaas Djibouti iyo aad u riixaysay oo teendooyinkii waa la keenay Boosaaso way leexiyeen Baydhaba way leexiyeen halka marka khilaaf weyn baa ka dhacay khilaafkaas oo ka dhacay hadana waxa la isugu yeeray meesha la yiraahdo Qaahira 1997 December 1997 sidii ayadan la isugu qabtay kaana masaarida kan soo Ethiopia ma wadin kaana masaarida waan laba xoogo ma taqaan Afrika iyo ku tartamay way wada ka soo baxayaan marka Abdullaahi Yuusufiyo marka baraka male markay noqotay in sirkan Soomaaliyeed la helo ba waxa la soo noqday waxa la marka maamul local in la sameeyo federalismku dad baa si khalad u fasira waxay yiraahdaan aan ka maqlaay hadda xamar ka hadlayo waxay leeyihiin markii shirkii Boosaaso la diiday ayay federaalkan keeneen qoladan North East wax siifo oo mabda ma bahayn waxba kama jiraan 1996 1995 shirarkii aad sabaan ay jireen reconciliation-ka ee UN ku waday ajandahaas waa ma taqaana dawladan way soo jeedinayeen يعني فدراليزم iyadoo loo arkayo badana Soomaaliya ay dagaal xun iyo ay ku dhacday systemka federaalka si aan ahayn inaan hadda wax lagu wadi karin ayaa loo arkay ma ahayn marka arrinka dhalatay arintaas waa been waa tarjumaad khaldan weey marka Puntland 1990 waxa marka aan dhisno shantii gobol bay isugu yimi kooda August baa lagu dhawaaqayaa laakiin ka hor dhowr bilood buu socday May ayuu bilaabmay shanta gobol baa shimay dadka degan waxa laga hadlay hadii bidin kale yahay sidii maamul loo dhisi lahaa wali marka maxamed ashiriya labadiiba waa joogaa tartankaasi waa joogaa doorasho meeshii laga sameeyay Abdullaahi Yuusuf baa markaa la doorto Maxamed ma gelinayo Kenko Maxamed Abshir waa diidanaa shirku diidanaa mise shirka marka hore abaabulkiisaba uu ka soo horjeeday soo because factually waxa weeyaan Abdullaahi baa watay shirka
watay iyo taageerayaasha kuwan iyo kuwii maxaan kaleba marka maalin waa umaleynaa talo miyaa liigu yiri maalin inuu tagay maxamed abshir ya ma hubo laakiin aakhirkii yaa kala ka baxay shirku dad badan baa isugu yimi inta hadda ka baxaysay wax ka hadashay waxay wax fara ku tirisa ahayd marka maxamed abshir oo ahaa nin siyaasi weyn oo meesha ka madax marka laga reebo iyo King Kong ya inta kale waxay iska hay ma badnayn fara ku tiris bay haayeen islaan maxamed oo halkan garow ahaado waxaan ka ahaa waxa ragii ku adkaa in la sameeyo ya taageeray waana hadlay isma badan baa hadlay maxamed abshir marka uu ka gaabsaday waxba ma gelin contest ba gelin iyo ka hor iska hormaad midna muusa kal faraw ka qaaday xilliga adag oo la soo maray ilaa iyo burburkii marka la soo laabanayo oo la sameeyay goboladan way bari maamulka SSDF mudiiradan garbabaha la iska kala ahaado laakiin waxaad moodaa xoogag kala duwan inay isla jaan qaadeen raggii Cabdullaahi Yuusuf kamid ahaa ee dibadda shiray ee duurka shiray ee soo jabhadeynayay maxamed abshir oo xiraa maxamed siyaad bare raggii mira awaare iyo ay kamid ahaayeen xasan abshir ilaa iyo jibriil raggii last minute la shaqaysanayay xoogag meelo kala gedisan ka kala yimi baa isla jaan qaaday maxay ku salaysnay walahi xoogaas waxay ku sanaysnayd waxaan qabaa USC baa u sababahay arintayada because maxamed siyaad bare waa la wada riday hadii shabahada tahay iyo hadii xamal markii laga kacay tahay markii uu baxay dadkii haday u yeeri lahayd oo oran lahayd dawladda la sameeyo oo waxa iman lahaa dawlad baa dhismi lahayd marka aaraa iyo mabaadi baa la isku qaban lahaa meeshii hadii maxamed siyaad bare waxa dhacay waxa weeyaan dadkii xabad baa lagu bilaabay ya wixii aan USC ahayn marka ama ahaw maxamed abshir iyo ragga maxamed abshir u xiraa ama ahaw ku SDF talahay anaga hadii kale wadanka xoreyno maxaan ku raadayay dhiigay u soo shubnaa ama ku maxsuusin ka kulli waxa la saaray wankiis baa la saaray kulli waxay ku khasbeen inay soo qaxaan oo yimaadaan marka arintaas meesha waa ka baxday raayig aragti kala duwanaantu ya survival baba meesha issue of survival baa yimi anu saasan warka inay tahay mataqaana wax ugu weyn marka dambe labadan yani waxa uu challenge koodu wuxuu ahaa chairman-nimada laakiin ma ahayn mabaadi kale wax kale isku hayeen maahan